waxaa loo mareegay 638 isku day dil si loo qaarijiyo kuwaas oo ay dhammaantood diyaarsay dowladda Mareykanka. Haddaba kuma ahaa qofkaas maxuuse sidaas oo dhan bartilmaameed ugu ahaa dowladda Mareykanka? Sideesa ayuu ninkan sabab ugu noqday in ay dunidu halis u gasho inuu dhaco dagaal nuclear ah min bilow ilaa dhammaad sheekadan oo xiiso badan leh ayaan muuqaalkeena ku soo aruurin doonaa ee nala soco oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran si aysan ku dhaafin barnaamijyada aan halkan ku soo baahin. Cid kale ma ahan ninka aynu ka hadlaynaa waa Fidel Castro, hogaamiyihii dalka Cuba. Balse ugu horeyntii si aynu u fahanno dulucda sheekada aynu wax yar dib u laabano bartamihii qarnigii tagay waxaynu ula jeednaa inaynu ku hadlayno kontomiyadii iyo lixdameeyadii. Waqtigaas waxaa dunida ka aloosnaa dagaalkii qaboobaa kaas oo u dhaxeeyay dowladaha Mareykanka iyo Midowga Soviet, laakiin ka dhacay meel aan ahayn xuduudaha labadaas dal. Dadka dagaalamayana aysan ayaga ahayn balse ay ayagu gadaal ka riixayeen barxadii ay ku hardamayeen dowladaha Mareykanka iyo Soviyetka. Waxaa ka mid ahaa dhulka dowladda Cuba waxaa hogaaminayay askari kaligii taliye ah oo lagu magacaabi jiray Fulgencio Batista. Waxa uu si aan qarsoodi iyo gambasho ahayn uu gacanta u geliyay dalkiisii dowladda Mareykanka. Heer waxa uu gaarsiiyay 75% dhulka dowladda Cuba ay yeelato Mareykanka. Wixii markaas ka dambeeyay waxaa bilowday kacdoon shacab oo lagu diidan yahay nidaamka dalka Cuba iyo habdhaqanka dowladda Mareykanka. Kacdoonkaas waxaa madax u ahaa Fidel Castro, walaalkiis Raúl Castro, iyo nin marka laga hadlayo Cuba ay qasab tahay in la soo hadal qaado waa ninka lagu magacaabo Ernesto Che Guevara. Raggaasi aad ayay u daayaraayeen laakiin waxaa ku jirtay xamaasad iyo firfircooni dheeri ah. Waxay si xoog badan u diidanayeen la tacaamulka guracan ee dowladda Mareykanka. Kacdoonka oo isu bedelay mid hubeysan waxa uu socday sanadahaas kadibna waxaa xilka laga tuuray madaxweynihii waxaana talada dalka la wareegay Fidel Castro. Markuu xukunka qabtay wuxuu si tartiib ah u tirtiray la tacaamulkii Mareykanka wuxuuna xariga ku xirtay dowlad kale oo weyn waa Midowga Soviet oo markaas loolan oo kala dhaxeeyay Mareykanka. Cuba iyo Sovietku waxay noqdeen laba dowladood oo aad isugu dhow. taasna waxay hur iyo kuleel ku shiday Mareykanka oo dowlad masaafo ahaan u dhow ay cad ku noqotay. Ayadoo arrintaas laga duulayo si degdeg ah ayay shir u yeesheen hay'adihii sirdoonka ee Mareykanka. Wixii laga yeeli lahaa arrintaas waxayna isku raaceen in Fidel Castro xilka laga tuuro. Si xilka looga qaadana waa in isaga oo dhan laga takhaluso oo iftiinka laga qariyo, yacni in la qaarijiyo. CIA-du waxay hubeysay koox mucaarad ahayd oo dalkaas ka jirtay waxayna ku dhiirigelisay inay dagaalamaan. Waxay bilaabeen howlgal ay ku beegsanayeen dowladda Cuba. Howlgalladaas waxaa ugu caansanaa howlgalkii gacanka doofaarka. Sanado la tababarayay, la diyaarinayay, isla markaana la qalameynayay. Kadib kooxdii mucaaradka ayaa in ka badan 1400 oo dagaalyahano ah ayaa weerar saf ballaaran ku qaaday gacan biyoodka doofaarka ee dhaca koonfurta Cuba. Kooxdu waxa ay filayeen in ciidanka dowladda oo warmuuga ah ay ka duldhici doonaan, laakiin warbixintooda hore ayaa loo ogaa oo cagta ayaa la mariyay gabi ahaanba kooxdii weerarka soo qaaday. Wixii markaas ka dambeeyay CIA-du waxa ay bilowday inay shirqoolo u dhigto Fidel Castro. Isku dayii ugu horreeyay waxaa loo adeegsaday baakad sigaar ah oo lagu soo cabeeyay walxaha qarxa. Qof diblomaasi iska dhigay oo CIA-du soo adeegsatay ayaa madaxweynaha diid ahaan uga dhigay baakad sigaar ah, laakiin nasiib wanaag uma isticmaalin sigaarkaas madaxweynuhu. Waxaana la sheegaa in sigaarkii keligii oo meel cidla ku qarxay. Taasi wuxuu ahaa howlgalkii ugu horreeyay, laakiin marnaba ma ahayn kii ugu dambeeyay. Sanadii 1962 Ameerika waxay mar kale isku dayday inay Castro sigaar ku disho. Dabcan sababta ay sigaarka ugu shirqoolayeen wax kale ma ahayn. Castro wuxuu ka mid ahaa madaxweynayaasha sigaarka sida aadka u cab. Mar kale CIA-du waxay soo ogaatay in uu dabaasha aad u jecel yahay, sidaas la'aadligeedna waxay u diyaarisay haamaha oksijiinka lagu dabaasho oo sumaysan. Howlgalkan waxaa loogu magac daray howlgalkii labiska dhimashada, laakiin mar kale waa uu ka badbaaday markii uu qorshahaas fashilmay. Haddana waxay isku dayeen in ay qorshe kale u degaan iyadoo loo adeegsanayo qofkii ugu dhawaa
waana saaxiibtiis oo lagu magacaabi jiray Ilona. waxay ahayd qofka keliya ee qolkiisa amar la'aan geli karta. CIA-da ayaa la soo xiriirtay ayagoona ka faa'iideysanaya xiriirkooda oo xilligaas xumaa. waxaa lagu amray in jalaato ice cream ay ugu darto sun oo ay ku qanacday arrintaas, waana ay ku dhaqaaqday tallaabadaas. laakiin nasiib wanaag mar kale waa uu ka badbaaday oo ma uusan cunin jalaatadii sumaysneed. shaqoola kale oo aad u badan ayay u maleegtay CIA-du Fidel Castro, qaracyo, maadooyin sun ah, qalimaan, baakadyo sigaar, dad shisheeyaan ah iyo weeraro shiloo ekisiiyay. waxaa lagu dayin malaha. waxaa la sheegaa in tirada isku day dil loo maleegay ay gaarayso 638 shirqool, laakiin dhammaantood oo ka badbaaday. ugu dambeyntii 25 November 2016 tobankii habeenimo ayuu si iska caadi ah sariir dusheeda ugu geeriyooday isagoo 90 jir ah. halkaas ayayna ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkeennii maanta. waa anigu Xasan Cumar ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.